gudoomiyaha shirkadda DP World Sultan bin Sulaim ayaa harimo sharafeed ugu sameeyay hotelka Jumeirah Imarat Towers ee magaalada Dubai madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo oo muddo socdaal shaqo ku jooga dalkan Sultanka Imaaraadka Carabta markii madaxweynaha Somaliland uu martiqaad rasmi ah ka helay madaxda ka arrimisa dalka Sultanka Imaaraadka Carabta martiqaadkan harimo sharafeedka ay mas'uuliyiinta shirkadda DP World ku maamuseen wufuudda ka socday dalka jamhuuriyadda Somaliland maadaama shirkaddani maalgelin ballaaran ay ku wado dekedda ugu weyn Somaliland ee Berbera gudoomiyaha shirkadda DP World ayaa tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay in magaalada Dubai uu ku qaabilo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayo ee socdaalka shaqo ku jooga Sultanka Imaaraadka Carabta waxaanu dul istaagay qiimaha ay leedahay maalgelinta dekedda Berbera iyo sida shirkada ahaan ay uga go'an tahay inay sii xoojiyaan iskaashiga ka dhaxeeya dawladda Somaliland iyo shacbigeedaba madaxda shirkadda DP World ayaa wafdiga reer Somaliland u sharaxay mashaariic ay Somaliland ka wadaan inay kor u sii qaadi doonaan xiriirka ay la wadaagaan bulshada reer Somaliland gabagabadii madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa madaxda shirkadda DP World uga mahad celiyay martiqaadka ay u fidiyeen wafdiga uu hogaaminayo waxaanu madaxweynaha Somaliland ka hadlay muhiimadda ay leedahay in Somaliland ay dhinaca maalgelinta horumar ka samayso mas'uuliyiinta shirkadda DP World wuxuu kula dardaarmay inay sii laabaan mashaariicda ay Somaliland ka wadaan waxaanu u hoga tusaaleeyay waxyaabaha ay Somaliland u baahan tahay bulshadeeda in laga taro